السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتك وحرين جنال كاركتسن يوتيوب كسود هذا البرنامج كمان. السلام عليكم. ninka ugu nasiibka xundunida ugu nasiibka fiican Frank Salak waa nin nasiib badan Soomaalida kumay beelahan isagoo kale waa 88 jir u dhashay dalka Croatia waxaa la sheegaa inuu yahay nin aad u nasiib badan sanadkii 1962 isagoo safar ah oo tareen saaran ayaa tareenkii waxaa ku soo dumay buur baraf ah dabadeedna tareenkii wabi ayuu ku dhacay dhammaan dadkii saarnaa tareenka way geeriyoodeen balse Frank Salak waxba ma gaarin marka laga reebo dhaawac yar oo lugaha ka soo gaaray sanad kadib ayuu markii ugu horeysay noloshiisii diyaarad raacay markii diyaaradii duushay ayuu motorkii ka cilidoobay nasiib wanaag Frank daaqad ayaa u furantay wuuna iska soo tuuray diyaaradii dhulka kuma dhicin wuxuu ku dulacay meel qashin aad u badan yaalo wax dhibaato ahna ma gaarin intaan kaliya kuma eg dhacdooyinka ninkan soo maray sanadkii 1966 ayuu soo raacay gaari bas ah si uu shaqadiisa u aado baskii uu saarnaa wuxuu ka soo dhacay buundo wuxuuna ku dhacay wabi buundada ka hooseysay 4 qof oo baska saarnaa ayaa halkii ku geeriyooday balse ninkii Frank ahaa waxba ma gaarin sanadkii 1970 ayuu gaari iibsaday isagoo gaarigii kaxaynaya ayaa si lama filaan ah motorkii gaadhiga dab qabsaday isla markiiba gaadhiga ayuu ka booday ilbiriqsi kadibna gaadhigii ayaa qarxay 2005 ayuu wuxuu soo iibsaday warqad bakhtiya nasiib ah wuxuuna ku guuleystay $1,100,000 sidaa ayuuna ku noqday ninka ugu nasiibka badan dunida fadlan walaal adigoo mahadsan subscribe oo la wadaag asxaabtaada kale si ay u arkaan